saddex qof oo beesha ciise ah ciidamada nuuriga ee beelaha bursi dhimasho iyo wax dhaawac midna ma soo gaarin balse waxa weeye dhinaca kale ayaa waxa laga dilay saddex qof oo dhimasho way daawadayaal soo dhawaada warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ilaa iyo boqolaal guryo ay lahaayeen beesha ciise ay gubtay ciidanka dawladda iyo si lamid ah bagida bursa laakiin waxaa la sheegaa in beesha Samroon iyadu ay lahayd kaalin muglan ay ka qaadatay sidii loo gubi lahaa guryahaasi xilli oo la sheegay in halkaasi uu ku sugnaa wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Sandheere isla markaana u joogay dhexdhexaadnimo iyo si lamid ah buu ka shaqeynayay in labada reerood ciisaha iyo Samroonka siday hubka u dhigi lahaayeen dhinaca kalena Taiwan ayaa iyaduna la sheegay in war-saxaafadeed ay soo saartay maanta ku cadeysatay mowqifkeeda ku aadan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo sheegtay in Somaliland ay yihiin saaxiibo dhow isla markaana ay garab taagan tahay ayna taageerayso dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay 2025 December aqoonsigii Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland iyadoona ay ku sheegtay in markaan ay wadada ku soo jiraan wadamo ay kamid tahay Ethiopia iyo si lamid ah Imaaraadka iyo Hindiya ay yihiin wadamada xiga ee aqoonsan doono Somaliland isla markaana si wanaagsan ula shaqeyn doono magaalada loo yaqaano Gargaaro Beri ee halkaasi oo degmada Lughaya ayaa lagu gubay ku dhawaad ilaa iyo 100 guri oo ay lahaayeen dad shacab ah oo ka tirsanaa beesha Ciise sida ay sheegayaan ilo wareediyo dadka deegaankaas markaana lagu xaqiijiyay in guryaha xitaa ay ka badnaan karaan ilaa iyo 100 guri inta la gubay arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Sandheere uu ku sugnaa deegaanadaasi isagoo wada dadaalo xoogan isla markaana sidii ugu dambeyntii loo dhameyn lahaa heshiiska ay wada gaareen Somaliland iyo reeraha halkaasi degan gaar ahaan Samroonka iyo Ciisaha hubka dhigisi lagu ballamay isla markaana la doonayo in hubka la dhigo siyaabo kala duwan ayaa loo fasiray guryaha la gubay iyadoo qaar kamid ah dadka deegaanka ay sheegeen in ciidamada halkaasi gubeen ay ahaayeen Samroon laakiin dhinaca kalena waxaa la sheegay in deegaanka dadka gubay ay ahaayeen iyo guryaha ciidamada Somaliland ee la socday wasiirka arrimaha gudaha isla markaana xigsanaya Samroonka uu ka xigsanaya Ciisaha wararkaas ayaa isa soo taraya saacadihii u dambeeyay waxaase wasiirka laakiin xilligaasi oo gubashada dhaceysay u joogay deegaanadaasi hubka dhigista iyo si lamid ah isu soo dhawaashaha u dhaxaysa labada beelood ee walaalaha Ciisaha iyo Samroonka dhacana ayaa dhalisay su'aalo culus oo ku saabsan natiijada socdaalkii dawladda maadaama gubista guryaha ay dhacday xilli lagu jiray dadaalo oo rasmi ah oo lagu doonayo in lagu dejiyo xiisada gobolka iyadoona la doonayo in lagu soo daabulo nabad si lamid ah bashalay ayay ahayd markii muuqaalo laga baahiyay baraha bulshada iyadoona laga arkayay dad ku labisan direeska ciidanka Somaliland oo la sheegay iyaguna inay ka qayb qaadanayeen gubista guryo shacab ah arintaas oo walaac weyn ku abuurtay bulshada ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay Somaliland iyo gaar ahaan hay'adaha amniga oo ka hadlayay eedeymahaasi loo jeediyay in dad ku labisan direeska ciidamada dawladda Somaliland ay gubeen guryihii ay shacabka lahaayeen isla markaan halkaasi ay ka geyseen khasaare kala duwan waxaa la sheegaa in khasaare ay ka dhasheen inay ku dhinteen dad shacab oo masaakiin ay ahaayeen isla markaana lagu sheegay inay isugu jiraan caruur habeen iyo waayelo waa sida la sheegay oo xogaha hoosaadka la helayo ay sheegaan laakiin aan la hubin tirada rasmiga la hubo ayaa lagu sheegay in dad cadadkeedu gaarayso ilaa iyo 3 qofood ay sabab u ahaayeen inay halkaasi ku nafahayaan gubitaanka guryahaasi loo geysay iyadoo aan la ogeyn dadkii goobtaasi guryahaasi degnaa halkii ay ka baxeen guryahan mar qudha ayaa si wada jir ah saf mareen loo gubay isla markaana aan la ogeyn dadkii degnaa guryahaasi meesha ay ka baxeen iyadoo la sheegay in laakiin halkaasi ay isaga qaxeen gebi ahaanba arrinka ayaa lagu eedeynayaa ugaas Mustafa ugaaska beesha Ciise eedeyn culus ay u jeedinayaan Somaliland iyo si lamid gaar ahaan Samroonka iyo nuqaasha Samroon iyo si lamid ah shacabkeeda iyagoo ay sheegeen in haddii kadib gubista deegaankan haddii ugaas Mustafa eedeynta loo jeediyay ay ahayd inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku baaqay dagaalka ka jira imika deegaanada Somaliland uu ka laaban waayo oo raaligelin ka bixin waayo oo mas'uuliyadda isaga qaadi waayo wixii ka dhacay deegaanada Somaliland dhimashadii iyo dhaawacii burburkii hantiyadeed ee dhammaan iyo khasaare kasta
oo ka dhashay iyo dhimashada ciidamada dowladda Soomaaliland haddii isaga uu sheegan waayo oo qiran waayo intuu muuqaal oo soo duubo raaligelin ka bixin waayo Samron waxay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin hubka dhigis lagu sameeyo iyo si la mid ahba dhexdhexaadinta lagu doonayo in gobolka looga soo daabulo ee nabad gaar ahaan iyaga iyo Ciise in lagu dhexdhexaadiyo waxay sheegeen intaasi marnaba aysan aqbali doonin isla markaana suuragal aysan noqon doonin in gobolka uu noqdo nabad isla markaana uu noqdo mid ka caagan hub maadaama weli ugaas Mustafa uusan ka laaban fikirkiisa ahayd in hubka dhigis rasmi ah lagu sameeyo reerkiisa iyo si la mid dagaalkii uu ku dhawaaqay uusan dib ugu laaban waxaa kaloo la sheegaa in ugaas Mustafa uu samaraba raali ka ahayn in hubka dhigista la sameeyo laakiin uu doonayo weli isla markaana go'aankiisa kadib xasuuqii aan loo meel dayan ay ku tilmaameen shacabka Ciise loo geysay dadkooda in kaliya waxa kaliya ku kala badbaadi karaan Soomaaliland ay tahay ilaa aqoonsado guban isla markaana ay noqoto dawlad ka madax banaan Soomaaliland isla markaana ay noqoto maamul goboleed hoos imaad doono oo xukuumadda federaalka Soomaaliya ugaas Mustafa ayaa lagu eedeynaya weli in isagoo uu horinayo colaadda gobolka isla markaana kaalin mug leh ka qaadanaya dagaalada halkaasi ka jira Soomaaliland gaar ahaan reeraha Isaaq iyo Samroonka ayay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin in ugaas Mustafa reerkiisa hadda kadib halkaasi dhaqdhaqaaq ay ku sameeyaan isaguna uu samaraba imaan karin deegaanada Soomaaliland maadaama imika uu ka maqan yahay ugaas Mustafa weli wax war rasmi ah lagama hayo maadaama la sheegay inuu diiday inuu ka qayb galo invitation-kii loo diray ee ku saabsanaa salaadiinta reer Soomaaliland oo kulmaayay taasoo ugaas Mustafa ku qaadacay maadaama la sheegay in kulanka Hargeysa ka dhacay oo amni xumo u keeni karo ugaas Mustafa iyo si la mid ahba in halkaasi lagu beegsado deetana loo taxaabo xabsiga Soomaaliland tanina ay sii horinayso colaadda halkaasi ka jirto gaar ahaan in ugaaska iyo dhinaca kalena la guro xabsi ay tahay sharaf xumadii ugu weyneed ee reerka Ciise oo ay sababi karto xitaa in Djibouti iyo Somaliland qoorta isku galaa isla markaana Djibouti ay ciidamo military infantry toos ay adeegsato waxaa la sheegaa in ugaas Mustafa u baaqday dhowr siyaabo darteeda amni xumada halkaasi ka jirto iyo amnigiisa iyo amniga reerkiisaba oo sabab u noqon karaan haddii ugaas Mustafa la xiro in dhamaantoodaba isku daabulaan Hargeysa isla markaana ay fuliyaan weeraro kala duwan waxaa la sheegaa in marka xilligan ugaas Mustafa uu qaadacay gabi ahaanba kulankii ay Somaliland ku doonaysay gaar ahaan madaxweyne Ciro iyo salaadiinta iyo cuqaasha reer Somaliland ay ku doonayeen kulanka la isugu imaaday isla markaana loogu soo daabulo nabadda ayaa gabi ahaanba uu iska diiday ugaas Mustafa isla markaana ku tilmaamay wax suuragal aysan ahayn in ugaas Mustafa isagoo uu socdo uu gaaro caasimadda Hargeysa Soomaaliland isagoo dhinaca kalena ku tilmaamay in Isaaq halkaas ay leeyihiin laakiin goobta kaliya uu tagi karo ku tilmaamay inay tahay magaalo ay leeyihiin reerkiisa Ciise ugaas Mustafa ayaa codsaday in kulanka lagu qabto Zaylac gaar ahaan jabhadda Ciise iyagoo ilaalinaya korka la socda ugaaskooda oo la qaban karo kaliya tanina uu ku sheegay xalka kaliya ay tahay isla markaana loo qaban karo kulan si wada jira loo dhanyahay laakiin wuxuu sheegay kulanka ka dhacayo Hargeysa salaadiinta iyo cuqaasha Somaliland iskugu imaanayaan ay yihiin waxba kama jiraan tanina uu sheegay in la doonayo kaliya sidii isagu looga afduuban lahaa halkaasi kadib markii kulanku dhamaado isla markaana uu sheegay inuusan aqbali doonin amni xumo kasta oo soo wajahaysa amnigiisa iyo ammaankiisaba isagoona sheegay inuusan marnaba aqbali doonin inay isdhibaan mar kale ugaas Mustafa wuxuu carabkiisa ku adkeeyay in beesha Ciise aysan isdhiibi doonin si la mid ahba ilaa iyo gobolkeeda ay ka asaasaan ugaas Mustafa wuxuu fariimo kala duwan u diray Somaliland isagoona u sheegay inaysan dagaal cidna kula jirin laakiin haddii la dagaalamo iyaguse ay diyaar u yihiin inay iska dhiciyaan cid kasta oo soo weerarta wuxuu kala carabkiisa ku adkeeyay in markaa beesha Ciise ay ka awood badan tahay intii hore iyo sidii ay moodayeen ee Somaliland iyadoona uu ku eedeeyay 30 sanadood u dambeysay inay gumaysanayeen reerka isla markaana cadaadis xooggan ay ku hayeen beesha Isaaq oo muddadii dhowrka sanadood oo ay sheeganayeen dawladnimo ay iyagu kaliya ay hayeen xilalka ugu muhiimsan iyo si la mid ahba dawladnimada ugaas Mustafa wuxuu sheegay inaysan marnaba isdhiibi doonin isaga iyo reerkiisa isla markaana diyaar ay u yihiin
inay dagaalamaan. Wuxuu kala xusay haddii danta ay kalafto xitaa inuu tagi doono furimaha hore ee dagaalka isla markaana isagu noqon doono ama bohorkac iyo dagaalka adag ee lagula jiro Samroon iyo Isaaq iyo dowladoodaba isagoona xuseynaysa marbaha reerka ciise dad isdhiiba ama bajaba. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa la sheegay inuu ugaasku kula taliyay inuusan tagin halkaasi maadaama loo dhigay sida sardoonka Jabuuti xogo hoosaad ay heleen in halkaas ay ka jiraan arqaladeen lagu sameeyay rabay ugaas Mustafa kadib markii uu gaaro Hargeysa isla markaana lagu doonay in lagu afduubto isaga shakhsiyadiisa iyo sharafka reerkana loo geysto dhibaato xun iyo sumcad beel in meel looga dhaco ay heed ay lagu doonay ayuu u sheegay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele wuxuu u sheegay in ugaas Mustafa ku adkaysto go'aankiisa Jabuutina ay tahay dawlad awood badan isla markaana aysan aqbali doonin gumeysi kasta oo hal reer qudha ugu yimaado. waxay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele carabka ku adkeeyay in iyagu ay yihiin dawlad awood leh oo intaas oo geeska Afrika ku tiila oo la aqoonsan yahay caalamka intiisa badanna xiriir wanaagsan ay la leedahay in maamul goboleed Soomaaliya kamid ah oo isaga uu gumeyso reerkiisa iyo sida doonuu ka yeeshto. wuxuu ku sheegay Ismaaciil Cumar Geele inaysan ahayn wax la aqbali karo gebi ahaanba isagoona xusay in xitaa ugaas Mustafa haddii uu u baahan yahay ay dagaalkan la gali doonaan ciidamada dalka Jabuuti iyagoo dhigaya tuutaha militariga Jabuuti laakiin ay qaadan doonaan macawiis iyo shaati isla markaana isu bedeli doonaan dad deegaanka iyagoona hubka iyo noocyadiisa kala duwan taageero military ay ka heli doonaan iyo saanadba. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayna gali doonaan dagaalkana ka gali doonaan furimaha adag ee dagaalka isla markaana safka hore ay ka dagaalami doonaan dagaalada adag imika ay kula jiraan reerka Ciise Samroon Isaaqa iyo dowladoodaba.